waxyaabaha la isfaray waxaa ka mid ah bisha tan aadka loogu dadaalayo oo nabigu samayn jiray at-tasadduq sadaqaadka inaynu inagu wax cunaabaynu badinay inaynu dadka wax cunsiino sida awgeed ayuu saxaabiga muxuu lahaa nabigu wuxuu ahaa mid deeq badan dee asliyan baa nabiga caadadiisa waxay weligii wax la weydiiyey maya ma odhan aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyey aan maya odhanin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahay ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fii ramadaan bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa intuu bishaa bixiyo way ka gadisnayd waxbixintiisu ka riixil mursala bay ahayd buu xadiidku tilmaamaya sidii dabayl dhabanaysa dabayl babanaysa ama dhabanaysa ayuu la mid ahaa yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisu way furray bisha tani waa bil markaa dadka muslimiinta ee takaaful ijtimaaci isu naxariistaan ciidanka difaaca Puntland ee BSF oo ka duulaya ka faa'iideysiga bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa wixii karaankooda afuriyay dadka magaalada Boosaaso ciidanka BSF ayaa waxay qoodiyeen danyarta aan awoodin inay qutulyoom ka helaan iyagoo wax ka siinaya raashinkooda kala duwan si gaar ah marka la gaaro sanad kasta bisha barakaysan ee Ramadaan waxay wax siiyaan dadka ay dantu u saamixi weydeen inay helaan afurka qaybo ka mid ah masaajidda waaweyn ee magaalada Boosaaso ayay ciidanka BSF bisha barakaysan ee Ramadaan geeyeen afur